xilli kasta goob kasta zaman kasta nooc kasta oo aata mar kasta oo dambi gasho inaad tawba ilaahay u soo noqoto oo ilaahay dambi dhaaf weydiisato oo dariiqeeda martaay waajib diino ku saaran way mid aan sheegaynay haddana dunuubta kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay haddii ay kugu dhalato ilaahay kuba dhaafi maayo shaydaanku wuxuu sameeyaay labadaba waa isku dayaa shaydaanku marka hore dambiga inuu ku geliyo isku day laba mid bay noqon inuu ku guulaysto kugu rido dambigii iyo inuu ku guulaysan waayo hadduu ku guulaysan waayo dambigii wuxuu leeyahay ninkan xaggaa u riixi weydaye xaggaa uu isu nabaya u riix wuxuu dhihi moogtay adiga wax dambiya maadan samayn ilaahay baa ku doortay awliye allah tahay halkaasuu ku marinba markuu dambiga kugu kari waayo way dambiga haddaad ugu dhacdo haddana inaadan towbad keenin buu ku dadaali dagaal buu kula geli towbada dagaalka waxaa ka mid a inuu ku yidhaahdo sawfa waa toobad keeni doontaa weli dhallinyaraa tahay nin yar baa tahay waa markaad yar weynaatiyo waa toobad keeni doontaa dib buu kuu dhigi wuxuu rajaynayaa isagoo dib kuu riixaya ajasho inay kadis kugu timaado saasuu rajo ka qabaa mararka qaarkoodna wuxuu ku leeyahay adiga bismillaah dembigaad gashay weligaaba ilaahay kuu dhaafi maayo dembigan la dhaafi maaye wixii dan ay kula gudboon ay kala qabsaniyo dembigaa la dhaafi maayo naxariista albaabadeedu kaa xiro uu ku quusin taa yeena dhicin taa hadday dhacdo lafteedaa dembi ka weyn ee dembigii kalead gashay inaad naxariista ka quusataabaa ka sii weyn dembi nabigeena ilaahi subxana wataala qur-aanka waa kaan soo marnay yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim dadka dembiga badan sameeyeyow laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ilaahay ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubtoo dhan ilaahay waa dhaafaa maxaad uga quusan marka